waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barteena barasha shaybaar taasoo aad uga barataan markasta inaan idin kusoo gudbin waxyaabaha la xiriira cilmiga shaybaarka. Waxyaabaha aan topiga aan ka hadli doono waxaa ka mid ah oo aan xooga saari doono caawa soona qaadan doono cilmiga la yiraahdo ama waxyaabaha la xiriiro RF system ama waxa loo yaqaano rheumatism-ka. RF test ayaan xooga saari doonaa caawa insha Allah taala. Waa maxay RF test? marka hore aynu ogaan waxa la yiraahdo ama waxa loo sameeyo RF test. haddana sidoo kale special waxaan ku hormarayaa hadda oo aan jeclahay inaan idin qeexo waxa la yiraahdo RF. RF is a test waayo marka hore kaasoo laga cabirayo halbeega ama tirada nambarada factorka sidaha kaasoo infection-ka rheumatism-ka ee ku dhacay dhiigga. waa inuu qofku macnaha markuu test iskagu sameynayo RF system uu ogaan karo halbeega ama factorka keenaya infection sidaha qaasatan asigoo iska test gareynaya rheumatism-ka. RF-kana waxaa laga test gareeyaa dhiigga oo testigaas waxaa loo diraa qofka inuu iska qaado dhiig. ma la doonayo inuu iska qaado waxa la yiraahdo stool ama saxaro ama urine. so testigaas waxaa laga sameeyaa dhiigga, source-ga waa dhiigga. Okay, maxaan uga baahanahay ama maxaan u isticmaaleynaa ama what we are uses for RF? RF test waxaa loo isticmaalaa ama rheumatism-kan RF waxaa loo isticmaalaa in ay dhakhtarku ka caawiyo inuu baaritaan ku sameeyo infection-ka ku dhaco kala goosyada ama infection-ka ku dhaco cudurrada ka yimaado difaac yarida. infection ka yimaado xagga difaac yarida ama inflammation ku yimaado xagga joints-ka. markuu test ku sameynayo wuxuu isticmaalayaa inuu diro RF test. dhakhtarku halkaas ayuu ka ogaanayaa ama diagnosis ka sameynayaa baaritaanka RF test kaasoo ugu dambeyntii uu xaqiiqsanayo inuu joints-ka ku dhacaan infectionada ku dhaco uu kala garanayo iyo inuu ogaado autoimmune disorders-ka cudurrada ku yimaado xagga autoimmune-ka oo immune system-ki inuu immune noqdo qofkii immune compromised. so RF testiga marka dhakhtarku wuxuu go'aansanayaa uu dirayaa inuu qofkan inflammation-kiisa arthritis of joints waxa la yiraahdo inflammation ku dhaco joints-ka inuu ka test gareeyo. markuu rabo waa inuu ogaadaa RF test waxa uu ugu horeeyo dirayo ay tahay RF test. sidoo kale waxyaabaha la xiriiro RF test waxaa yahay qodobka saddexaad soo qaadanayna wuxuu yahay in aan ogaano waxa RF test aan u baahanahay marka aan dirayno. maxaan markaan dirayno RF test aan sameynayna ama markii aan waxyaabaha qaar isku aragno waa inaan dirnaa RF test. RF test waxaan isku diri karnaa dhakhtarku kuu dirayaa markuu kugu arko calaamadaha soo socda ama adiga waxaad dalban karaysaa RF test markaad isku aragto calaamadaha soo socda. 1 muuqa xanuun, 2 muuqa adkaansho weliba waqtiyada subaxdii oo kale ah. xilliyada subaxdii waa in murquhu stiffness oo noqdaan adkaadaan. sidoo kale murqa barar ama waxa loo yaqaano joint swallowing. sidoo kale fatigue ama daal qodobka afraad weeye. iyo qodobka shanaad ugu dambeeya oo ah qandho heerkeeda uu hooseeyo inuu qofku isku arko. so markuu qofku isku arko waxa la yiraahdo maxaa la dhahaa muruq xanuun, muruq adkaansho ama swallow stiffness iyo weliba qaasatan xilliga subaxdii iyo muruqa oo bararo iyo fatigue ama daal ama qandho xagga xilliyada hoose digriga uu hooseeyo xilliyada qaar kugu dhacdo. wuxuu dhakhtarku haddaad signs and symptoms-kaas uu ka arko ama uga cabato wuxuu dhakhtarku kuu dirayaa RF test waxa loo yaqaan. so dhakhtarku wuxuu baaraandegayaa markaas inuu ogaado in mid ka mid a markuu intaas kaa helo waxaa niyadiisa kusoo dhacayso wuuna ogaanayaa inuu RF test aad u baahan tahay. sidoo kale RF test waxyaabaha aan macnaha ka ogaan karno ama aan halkan ka sheegi karno waxaa ka mid ah in dadku badankood markay ku yimaadaan ay ku dhahayaan niyo rheumatism ahaayo iga cabir ama rheumatism iga baar. dadka badankood inta ku yimaadaan waxay iska kaaleen rheumatism ahaayo cabir wax la cabiro u maleeyo. so dhakhtarku markuu qofku u yimaado ka cabanayo
cudurkan RF test ama rheumatoid factor ama rheumatism waxa loo yaqaano waxa uu leeyahay patientigi ditore dhabarka xanuunaya cause waa taan hore soo dhahnay pain muscles murqa xanuun ama joint pain qofkii oo kale goosida xanuunaya ama murqaha xanuunaya waa qofkii markuu taagan yahay dhabarka uu xanuunaya murqaha dhabarka soo galo ku jiro ayaa qofka dhibaayo soo markuu wuxuu ku leeyahay rheumatism ah waxyaabaha kale ee RF test aan quseynin ee la sameeyo ama aan shaqo ku lahayn la diagnose gareyna waxa kamid ah qofka markuu dhakhtarku u shakisan yahay inuu qabo cudurka osteoporosis waxa la yiraahdo osteoporosis waa macnaha qofkii lafihiisa oo jilco ama jajabaan ama malformation of osteo ama of bone qofkii laftiisi oo macnaha malformation noqoto oo formkeedii ama shapekeedii oo xumaado markuu dhakhtarku ku diraayo osteoporosis ma quseeyaan qofka in loo diro RF test so way ka madax banaan tahay osteoporosis in RF test lagu qaldo ama RF test la diro so halkan waxaan ka ogaanay waxyaabaha uu yahay rheumatoid factor ama RF test ama testiga la sameeyo xilliga loo baahan yahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin please ha iloobin inaad channelka inoo saarto like subscribe and comment ka soo bixiso fikradaada ka dhiibato waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum.